xaflad si aad loo soo agaasimay isla markaasina lagu taageerayay isbeddelka cusub ee ka dhashay dalka Soomaaliya laguna duceynayay hoggaanka cusub ee majaraha u qabtay dawladda Soomaaliya ayaa waxa habeenkii xal ahaa lagu qabtay jaamacadda UUM gobolka Kadax ee waqooyiga Malaysia. xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay jaaliyada Soomaaliyeed dalka Malaysia, aqoon-yahano ajaanib taageersan dawladda Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaalida ku dhaqan dalka Malaysia, waxaana dhamaantood wajahooda ka muuqday taageerada ay u hayaan dawladda Soomaaliya iyagoona ka rajeeyay inay wax badan ka qaban doonto xaaladda dalka Soomaaliya. goobta ay xafladu ka dhaceysay ayaa ahayd mid si aad u camiran, dadweynuhu waxa ay ku labisnaayeen korna u haysteen calanka Soomaaliya. qof waliba waxa uu ku mashquulsanaa dhagahana u raaricinayay khudbadaha ay soo jeedinayaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay madasha. guud ahaan dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa waxa ay halkaasi ku soo bandhigeen taariikh nololeedka madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka, iyagoona dhamaantood isku raacay inay tahay isbeddel cusub oo si lama filaan ah uga soo dhaxbaxay ummadda Soomaaliyeed isla markaasina rajadoodu ay tahay 100%. ugu horeen waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha qabanqaabada xafladda Cabdirasaaq British iyo qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadan. hadal badan aan ma buuxsho ujeedada barnaamijkan laga leeyahay waxa ay tahay in wixii ka dhacay Soomaaliya ay tahay waxaan annaga oo dhan wax ku leenahay. doorashadii ka dhacday dalka Soomaaliyana inay tahay waa cusub oo u bariyo ummadda Soomaaliyeed. waxaan filayaa 10 September inay soo gabagabayso mugdigii, jahligii, dhibaatadii, dilkii, boobkii, dhici, qabyaaladii dhammaan wixiina reebay 20 sano ee la soo dhaafay 2 decades. bismillahir rahmaanir rahiim. waxaan jecelahay meeshaan inaan mahad aad u ballaaran u jeediyo ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Utara oo si wanaagsan u sameeyay xafladan. sidaas oo kale waxaan jecelahay inaan hambalyo u diro madaxweynaha cusub Prof Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Prof Jawaari iyo Soomaaliya noolaato. bismillahir rahmaanir rahiim. ana magacayga yahay Maxamed Axmed Macalin, dhigto jaamacadda University Science Malaysia, kana mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhigata jaamacadda Utara ee ku martiqaaday inay ka soo qayb galaan barnaamijka lagu soo dhaweynaya isbeddelka cusub ee Soomaaliya ka dhacay ee ku soo dhaweynaya madaxweynaha cusub iyo gudoonka baarlamaanka. waxaan dhihi karaa barnaamijkii cawada ay suubiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhigata jaamacadda University Utara Malaysia wuxuu ahaa barnaamij fiican, ku dayasho mudan, wadaniyad leh. waxaan dhihi lahay Soomaalida kulligood haday saan oo kale ugu caboon lahayn wadanka in wadankeena horumar lahay. waxaanan 100 times aan mahad celinayaa ardayda barnaamijka qabanqaabisay ijaalada Soomaaliyeed iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijka. anigoo leeyahay Maxamed Imaam Maxamed oo kamid ah qabanqaabayaasha xafladii maanta oo ka dhacday jaamacadda UUM oo lagu taageeray isbeddelka cusub oo ka dhacay dalka Soomaaliya. ananka oo arday oo xafladaas oo qabanqaabinay oo waqti dheer naga qaadatay oo time iyo juhdi badan ku bixinay. alxamdulillah maanta u dhacday si successful u dhacday. waxaan rajaynaynaa dalka Soomaaliya inuu dal nabad oo naqdo aan dhamaanteen u wada laaban marka jaamacadaashan dhameynaysan insha Allah. xafladan ayaa ahayd tii nooceeda oo kale ah oo ka dhacda bariga fog ee qaaradda Asia, ayna soo qaban qaabiyaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda UUM ee dalka Malaysia, isla markaasina lagu taageerayo isbeddelka cusub ee ka dhashay dalka Soomaaliya. Ahmed Abukar Azhari, TV-ga caalamiga Somali Channel, jaamacadda UUM waqooyiga Malaysia.